wadooyinkii ku xirmay dagaaladii ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa gelinkii dambe ee maanta dib loo furay kadib markii wadahadal uu dhaxmaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya guddi uu magacaabay iyo guddi kale oo ay magacaabeen saraakiishii ka godoosanaa muddo kordhintii hore baarlamaanka ay ugu sameeyeen madaxweyne Farmaajo balse baarlamaanka hortiisa kaga dhawaaqay in arrimaha ammaanka iyo doorashada uu ku wareejiyay ra'iisul wasaare Roble wadooyinka dib loo furay ayaa waxa ay sii dhaxmarayeen xaafadaha Siigaale iyo Barmuuda oo ka tirsan degmooyinka Hodan iyo Holwadaag waxaana maanta furay dawladda Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay la socdaan xubno ka tirsan xukuumaddiisa gaadiidka dagaalka iyo kuwa cagaf-cagafta ayaa halkan soo gaaray iyagoona dib u furay dhufaysadii halkan hore ugu sameysteen xubnaha mucaaradka ciidamadooda dhammaan ciidankii hore u xirtay xaafadaha Siigaale iyo Barmuuda ayaa isaga baxay waxaana gaadiidka cagaf-cagafta ay burburiyeen goobihii hore dhufaysada ay ugu sameysteen sidoo kale waxaa dib loo furay jidadkii iyana ku xirnaa degmooyinka Kaaraan Cabdicasiis iyo Yaaqshid waxaana halkaasi si kormeer ahaan ugu tagay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyadoo halkaas uu ka hadlayay ayuu Roble sheegay in uu ku wareejiyay goobihii ay faaruujiyeen ciidankii mucaaradka ah ee muddo kororsiga hore uga gudooday taliska booliska Soomaaliya waxaa farxad weyn ah maanta inaan imaado isgooskii Mirnaayo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan halkan soo booqdo wadadan aan furno sidaa darteed waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan intii ka soo qayb qaadatay furitaankan waxaan rabaa inaan ku wareejiyo taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo halkan uu matalayo taliyahooda xijaar ku soo dhawow isgooska Mirnaayo Soomaan meeshan taagna waa ka codkaas rabin ka maqlo waa ka marka waa mahadsantihiin billahi tawfiiq idinkana ajra iyo xasanaad Allah idinka siiyo iyadoo arintaasina ay soo dhaweeyeen shacabka degan degmooyinka Hodan iyo Holwadaag oo dib weyn ku qabay dagaaladii ka dhacay degmooyinka Hodan iyo Holwadaag ما شاء الله si fiican waa aad aan ugu faraxsanahay waayo wadadan hadda waa ciriiri anagu aad waayo marmara inta daga xaqana ka marayno inta naga xiranto haddana inta waa waxay ahaa jirtay meel furdaamo adiga markii xaq naga xiranto amal inta ka soo wareegi jirnay marka carra naga aali jirtay carradii hadii noo la furay ما شاء الله هذا أمور فرح سنة هاي وأنا إن بدنا وان جعلنا ولا فرق وأنا أملينا ولا فرق ما شاء الله هذا أمور فرح سنة هاي والله عرض واحد قال لي عيد المعارضة هذيك ودي دناي متكردنته ما شاء الله مركز دنا إن أيجي استبي ذوق بحن ودينا ولا فرق هذا أمور فرح سنة هاي عبد على الليلة جيت كحرنا مرة لغاتك مقابلة اللي يقول رالي كنا الله جيت على والله عرض والله والله نظيف يا نظيف دولده محمد يحيى جينو ورباهينتا نيشن مقدشو